بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنين وحلقة قارة ونقول تلقى لنا كذا جوابه هل سؤالة سؤال شاسي الصونا معها أفي عذرية كورونا معها waa su-aal adduunka iyadoo joogtay in badan intii laga jawaabay aakhara nala aaday wey dadku adduunka si ay isu weydiinayaan bay aakharana isu weydiiyaan su-aashani waxay leedahay adduunka waan ognahay ragga waxaa loo baneeyey hal dumara ka badan dumarkana waxaa la yidhi hal nin ka badan ma guursan karaan waxaan fahanay sababka oo taranku inuu isku darmadaa la diidayaa haweenta rag badan hadday yeelato ilmaha cid dhashay lama aqoonsan karo aadamuhuna baadhis iyo qalab hadda la sheego oo isirka qofka lagu baadho ma wada heli karaan meelo badanna kama jirin berrina inuusan jirin baa laga yaabaa haddana waxaan aragnay baa la yidhi aakhiro oo raggii haween badan leeyihiin dumarkii laakiin hal nin ka badan la ogol yahay lama sheegin inay helayaan waxaa la isoo weydiiyey waa su-aale dumarku aakhiro hal nin ka badan ma yeelanayaan haddaynan yeelanaynin maxaa sabab ah su-aashaasi iyadoo adduunkii ka taagnayd bay aakhirana inoola dhexdhexday marka su-aashaasaan rabaa kelmaddan kooban inaan kaga hadlo waxaana rabaa si aan u dabciyo dhowr qodob oo hordhaca inaan u sameeyo dhowr qodobna aan gudaha ugu galo marka koobaad xaq ma u leeyahay wuxuu qofku saamisa ma laha waxaa muhima inaan isla ogolaanno xayaatada iyo noloshu labada daaroodba waa minxa iyo deeq ilaahay weeye dadku xaqa iyo waajib ay ku leeyihiin ma aha inaan ifkiyo adduunka aad timaadana waa deeq eebba ku siiyey ee xaqaad lahaydoo la gudayo iyo abaalaad gashoo lagu gudayo midna ma laha maaha aakharo soo noolaynta iyo janno geyntuna waa fadli iyo gallad eebe ee gar iyo xaq aad leedahay ma aha saas darteed nicmadaa jannada ah ilaahay hayna geeyey qofkii tagaay waxa nicmada yaallo oo dhan waa minxa iyo deeq ilaahay weeye subxaanahu wa tacaala saas darteed nabigeenu waa kiina yidhi qofkiina kuma gala jannada camalkiisa markaasaa waxaa la weydiiyey adigana wuxuu yihi walaa ana ilaa an yatakamadanii allahu biraxmati anu xataa kuma geli kara hadduu ilahay naxariistiisa ihuwin saas darteed qodobka waxaa kaaga baxaya qodob labaad oo odhanaya ilaahay wuxuu doonuu sameeyaa wuxuu sameeyana lama weydiiyo laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun walaa raadda liqadaa'ihi waaye ilaahay waxay dadka sameeyaan isagaa weydiiya isagu lama weydiiyo wuxuu rabuu sameeyaa wuxuu rabuu bixiyaa wuxuu rabana qof buu siiyaa wuxuu rabana qof buu ka leexiyaa saa darteed qof kastoo jannada gala wixii la siiye iyo waxaan la siinin xaq uu leeyahay ma ahane waa fadli ilaahay wixii la siiyana waa gallad iyo deeq waxaan la siininna gardarro iyo xaq ka maqan oo cadaalad darro ah marnaba ma aha intaa horta iimaankeedu inuu ku dhaca wey halkaa dee ilaahay inuu xaqaa leeyahay oo wuxuu raba samayn karo wuxuu sameeya dadka siiyana gallad iyo deeqay tahay wuxuunan siininna aynan dulmi iyo xaqu u diiday ahayn halkaa haddaanan rumaysnayn muranka iyo jaqjaqda dambe waxma tarayso
mabda'a laakiin haddaad rumaysaay haddii la siiyo laba iyo haddii hal la siiyey iyo haddaan waxba la siininba waa deeq aan dood iyo muran mudnayn. qodobka kale mudan inaan tilmaanno caalamka aakhiro waa caalam inaga maqan. waxa muuqaalka iyo miisaanka hadda aan naqaanana wax inta lagu matalo la meeqaam la dhiga ma aha, ama si kale haddaan u yidhaahdo wax looga qiyaas qaadan kara ma aha. laga bilaabo qabri iyo god marka la galay qofku ku nool yahay cadaab iyo naxariis kula kulmaya midkood ilaa qiyaamada la soo saaroo dadkii ciiddaa cuntay la soo celinayo kadibna janno iyo naar la gelayo dab aan lagu dhimanayninoo naara ka adduunkana ka kulul. intaasoo dhani waa caalam qayb inaga ah oynaan arag, wax la mid ahna maynaan arag. waxaan ku mataloon barbar dhignana ma laha. haddii isaga iyo muuqaal suu og yahayba iyo xogtiisa guudba waxaad ku matasha aynan jirin, xuquuqdeeda aakharana waxaad ku matasha ma laha, xukunkeedana waxaad tixraacda ma laha haddaan waxii rabbi soo dejiyey oo la raacaya ay jirin. wax caqli aadama qiyaasi karana ma aha. saas darteed baa nabigu ku tilmaamay oo yidhi fiiha maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar. waxa jannada ayaa laayay qalbina kuma soo dhaco, ilaa isagoo kale ma arag, dhegna isagoo kale ma maqal. waxaad barbar dhigatood ku matalataba ma laha. caalamka waxaa looga dambeeyaa haddaba maxaa kitaab iyo sunno ku yimid. wixii aan ahayn waa waxaad ka warramayso rajman bilghaybi, waxaadan ogeyn ood iska tiri wey. iska tirina caqli iyo cilmi toona in la yidhaahdo la aqbala ma ogola. intaas kadib naciimka jannadu way badan yihiin. guurka iyo gogosha keliya ma aha. dad baa laga yaabaa nicmadii jannadoo dhanba inay ugu soo urursatay guurka iyo gogosha iyo niman badan iyo naago badan. nicmadan leeyahay wa fiiha maa tashtahiihi اlanfusu wa taladu اlacyunu, wax kastoo ay nafi jeclaato iyo wax kastoo ili ku raaxaysato ay ku qabowsatay leedahay. nicmadan gaayadeeda lagu tilmaamay waxaa ili arag, dhegna maqal, qalbina ku soo dhicin oo dhan, oo milki leh, oo qusuur leh, oo daaro leh, oo hanti leh, oo cunno leh, oo cabitaan leh, oo gaadiid leh, oo ku dhammaanaysa riddo ilaahay iyo aragtida wejigii subxana wa tacaala. nicamku intan keliya ma aha. nicamka ilaahay qof walba intuu doonuu ka siin. nicamkaana qof walba way deeqi, qof walbana wuxuu ku raali noqdaa la siin. radia allaahu canhum waraduu canhu. muhimaddu dadku inay raalli ku yihiin oo nicmaystaan oo dhergaan way. kan ugu wax darajo yar ahlu jannaha ba adduunyadan iyo 10 laabkeed leh. aakhare marka la tago ijtihaada iyo qalbigu wuxuu doonaad heli baa lagu yiri, laakiin khalqigaa waxaa ka mid noqon doona dadaan waxyaabaha qaarkood naftoodu rabitaanba u haynin, oo masaladani ka mid tahay waana u soo laaban doonaa. laakiin waxaan dhib lahayn in la isweydiiyo waxyaabaha nafta qofku jecel yahay adduunka aakhare ma ku helaya inuu yidhaahdo. fii saxiixi albukhaari min xadiidi abi hurayra nabigu wuxuu yidhi calayhi salatu wasalaam, jannada marka la tago nin baa dhahaya ilaahu beer baan jeclahayee beer. markaasaa meel la tusayaa oo laleeyahay abuuro, markaasoo abuuri isagoo taagan bay dhalan, oy miro dhalin, oy bislaan oo u goosan. nin reer baadiyo oday oo meesha fadhiyay baa intuu wuxuu rasuulka ilaahayow ninka saa dhihi doona ama waa quraysh ama waa ansaar, iyagaa beeraley oo beerta jecel buu yidhi. nabigu waa ku qoslay sal slam. xadiid markii la isu geegeeyey qaar xasan way yidhaahdeenna nabiga ilmo haddaan jeclahay inaan dhalo
ma dhalayaabaa len markaasuu yihi ha halkaa aad joogto ku urgeliyo ku dhalani oo ku weynaan. qodobka kale muhimkeen tilmaamaya waxaa weeye wa fiiha maa tashtahiihi اlanfus baa la yidhi. horta dadka aakhare tegayaay oo rag iyo dumar leh, ragguna dhammaan dumar ma wada leeyahay? labku dumar ma wada leeyahay? aan isticmaalo ereyga lab wayaan rag isticmaalin hadda. labku dumar ma wada leeyahay? dhadiguna rag ma wada leeyihiin? jawaabtu waa maya. naciimka jannada ma loo siman yahay? jawaabtu waa maya. hal tusaalaan idin siin marka intaana ka dumarka soo gelin. nicmada jannada marka laga sheekeeyey atfaalu lmuslimiin, carruurta yarka muslimiinta ee yaraanta ku dhimatay, khadamu ahli اljannati wey. jannaday ku jiraan waa ahluljanna sax, laakiin waa shaqaalo khaadimiin ah. iyaga kuwa loo khidmaynaya ma aha. lama sheegin carruurta yaryarada ku dhimatay ee khidmaynaya iyagu inay wiilashooduna gabdha leeyihiin, gabdhahooduna inay rag leeyihiin lama sheegin. iyagaaba khaadimiin oo naciimkii jannada ka mid a oo inay khidmeeyaan mukhalladuuna iyo yatuufuuna iyo iyaga ah. saa darteed ahlujannuhu inay isu khidmeeyaan oo qaarkood shaqaale isu noqdaan baynu halkaa ka barannay. carruurtoo dhan weyana atfaalu lmuslimiin iyo atfaalu lmushrikiin labadaba ilmihii yaraan ku dhintay oo dhan khadamu ahli ljannati waa. dumarku waxaa la sheegay markay aakhara tagaan inta ilaahay jannada geeyo maba qabi doonaan damac nin labaad. fiihina qaasiraatu طarfi lam yaطmithuna insun qablahum walaa jaan wacindahum qaasiraatu طarfi ciin xurun maqsuuraat fi اlkhiyaam. qaasiraatu طarfi, qasru طarfiga waxaa looga jeedaa ninkeeda mooyeen mid kalaba ma rabtaba, qalbigeedana kuma soo dhaco, rabitaanna uma hayso haba yaraatee. hadkhar sidii la yidhi sax wey, wafiiha maa tashtahiihi اlanfusu, nafta waxay jeclaata wey. laakiin waxay nafta dumarka mu'minka ahlu jannuhu jeclaanayaan kumaba jiraba nin kale. aayaddanaa caddaynaysa fiihina qaasiraatu طarf. horeyna waxaan isugu soo ogeyn aakhara wixii ku saabsan aayad iyo xadiid sugan baa looga dambeeyaa. wax adduunka lamidan uga qiyaasanoon garab dhigna ma laha. muhiimaddu ilaahu jannada ina gee weye. nin baa laga sheegay janno intuu dhegaystay nicmadeeda, alla aniga meesha kabaha la dhigtay yaa i geeye buu yidhi, intaas ay deeqi lahayd. jannadaba haddii la ogeeyo dunyadii iyo 10 laabkeed baad yeelan. waxaa laga yaaba inay isweydiisaan su-aal tan keentay, laga yaaba inay keentay ama saa qayb ka ah. haddii la yidhahda ninkii 2 naagood iyo waxbuu leeyahay, haddii la yidhaahdaa xurulciin baa u dheer, de adduunkaba markuu 2 naagood iyo ka badan qabay qayb baa marar qadi jirtay inay waxoogay qadda oo tabasho timaado soo iman mayso. jawaabtu waa maya. waxaa ka sugan nabigeena sal allahu alayh wasalam in ninku qiyaamada marka uu yimaado fi xadiidi abi saciidin iyo kayrkiiba, ahlujannaha ragga aakhare waxaa la siin doonaa quwata 100 rajulin, 100 nin awoodood baa la gelinayaa fi الطacaami wالsharaabi wالshahwati wاljimaaci. rabitaankii iyo gogoshii iyo cunadii iyo cabitaankii 100 nin awoodood baa la siinayaa. marka intaa iyo ka badanba waa ka badbadan yahay oo waa ku filan yahay. baahi ay nin kale u rabtana ma yaalla marka meesha. saa darteed baan qalbigeedii rabitaankaba laga saaray, baahideediina 100% daboolantay. jannadu waa isu dheelitiranta. qodobka ugu dambeeyaa ku gabagabeeyo, markii qur-aanka iyo sunnada la aqrinayo ragga waxaa loo ballan qaadaa dumar iyo xaasas fiican iyo qobdha nadiif iyaad leedihiin,
dumarkana rag looma ballan qaadee maxaa dhacay taasi aadamaha adduunka lala hadlayo fitrada abuurkooday ku salaysan tahay waxa wax raadiya ma rag baa mise waa dumar waxa wax raadiya ama wax faduuliya waa rag raggu wuxuu ku shaqeeyaa anaa waxaa raba dumarkana wuxuu ku yidhahdaa anaa ku doonaya anaa dumar doonaya anaa guur doonayuu yidhaahdaa dumarku laakiin waa ka xishoodaanoo isagaa i doonayay tiraahdaa isagaa i raba isagaa i jecel saa darteed laba caruur haddaad dhashay wiil iyo gabadh fitrada saasana gaal iyo muslimba waa la isku raacsanya inta wax ka qortay inta muslim iyo kristan iyo yuhuud iyo mulxidiin aan akhriyey intaba arrinta waa isku raacsan yihiin haddii dib looga baahdo kutubtooda mar baan soo gudbin doonaa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel kutubtooda luqadaha kala duwan ku qoran haddaad wiil iyo gabadh dhashay aan kusoo gunaanado tusaalaha waxaa badan wiilka inaad tiraahdo haddaad waxa fiican samayso oo darajooyinkaa fiican keento gabadha ugu fiican baan kuu guurin laakiin gabadha lama dhaho haddaad intaa samaysan ninka ugu fiican baan kuu guurin lama dhaho haddaad saa tirahda markaa way boodi maxaa yeelay ragguna wax raadin buu ku salaysan yahay oo isagaa daba orda dumarkana waa la raadiyaayo iyadoo rabta xataa gadaal bay isu dhigtaa si kastaba ha noqotee jannada wax walbaa laga helaa wixii kalena wixii ay naftaadu jecelaataad ka hesha intaa waxaan rajaynayaa masaladii iyo su-aashaasi inay dhinacyo badan ka ifisay wax badanna qofka oo kaga qanci doonaan rajaynayaa halkaasaana kusoo gabagabaynaynaa su-aashana asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu